kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal kale oo cajiib ah ku soo dhawaada kanaalka xogta geeska daawadayaal subscribe saar waxaan ku soo qabsanayaa maasadii walaalkay maxamed eekal maxamed anigoo dal weyn iyo dawladnimo disqaadiyo darajiyo libeli kara degmo la igu koobiyo ducfi iyo haliitiyo daandaan ma liqi karo nin kasta hadiide waxaan doonayaa nolol ka daaweyn intaan qabo waxaan doonayaa dheef aan la ii dawarin oo dadaal lagula soo baxo waxaan doonayaa guul wada deeqdoonkoo dadku ugu siman yahay waxaa hubaalo qof kasta oo inaga mid yihiin isweydiinayo cidda nimcaan hillaac u samaysay heesahan cajiibka balse waxaa hubaalo oo la yaab leh in laba heesood oo cajiib oo uu sannadkii ugu dambeeyey qaaday ay wada sameeyeen laba abwaan oo isku beela isla markaasina wuu la qabsaday isagu waana cali ileeye iyo haykal m cabdi oo labadooduba kala lahaa labadii heesood ee ugu cajiibsanaa ee uu qaaday maalmaha xorriyadda ana cajiibayn abwaanadani ay heesaha siiyaan nimcaan hillaac maalmaha xorriyadda oo keliya ee uusan qaadin heesahooda maalmaha kale hees jacaylanna uma sameeyaan maadaama oo xorriyaddu ay leedahay dareen gaara waxay u sameeyaan heesahaasi isla markaasina nimcaan hillaacna wuxuu jecel yahay inuu heese ka soo doonto labadani abwaan waana haykal maxamuud cabdi iyo cali ileeye oo qoraaya isla markaasina abwaan weyna ana cali ileeye oo bulshadu si weyn u taqaano marka laga hadlayo Hargeysa iyo nawaaxigeeda isla markaasina qoraa iyo abwaan weyne kuna dhashay gobolka Hawd agagaarka xaruntiisa Balgubadle iyo haykal maxamuud cabdi oo ka soo jeeda beesha Guulane isla markaasina ku dhashay isla magaalada Hargeysa laba abwaanku waa haykal maxamuud cabdi wuxuu heestani u tiriyey maansa ahaan isagoo aan qof siinin oo aan hees ka dhigin waxa uu soo dhigay barihiisa bulshada sidoo kale waxaa heestani qaatay ama maansadani qaatay oo ku soo halqabsaday maayarkii u sharaxnaa golaha deegaanka ee magaalada Burco isla markaasina ay saaxiib yihiin abwaanka haykal maxamuud cabdi intii uusan qaadan nimcaan hillaac ee uusan hees ka dhigin abwaanka waxaa heestani ku soo halqabsaday isla maayarka magaalada Burco haddaba waxaa la yaab noqotay abwaanku ma uusan shaacin inuu heestani siiyey ama u dhiibay fanaanka nimcaan hillaac balse waxaa loo badinayaa in fanaanka nimcaan hillaac uu arkay ololahaas isla markaasina uu ka codsaday inuu heestani ama maansadani u dhiibo si uu hees uga dhigo nimcaan hillaacna balse ilaa iyo hadda lama xaqiijin inuu abwaanku u dhiibay isna ma xaqiijin heestan kasekow waxay jirtay hees uu cali ileeye u dhiibay sannadkii hore maalmihii xorriyadda taasi oo ahayd heestii uu la qaadayay Axmed Rasta isla heestaas waxaa laxanka saaray Khaalid Kaamil oo isna Muqdisho joogay isla markaasina muddo dhowr sano ah ku noolaa halkaasi markii uu ka tegay Hargeysa isla markaasina heeso u qaaday dawladda federaalka Soomaaliya Somaliland ayaa sheegtay in ninkaas la xiri doono marka uu yimaado Soomaaliland balse wuxuu ka gaabsaday imaanshiyaha Hargeysa iyo soo eegitaankeeda